inay maxaan ku isla shaqeeyaan oo kulli wada hagaagsan yihiin qofku waxay noqonaysaa marka inuu wada leeyahay the highest level taasoo keenaysa waxa loo yaqaano wellness ama se qofku waxa dhici karaysa inuu jirkiisa marka saacadan uu joogo wanaagsan yahay laakiin emotional qofkii aanu deganayn qofka emotionally dareen ahaan iyo maskaxaanba qofkii aanu degayn oo hawlo kale ku furan yihiin ama waxyaalo kale maxaan ku raadaa caqabada ay jiraan taasoo u baahan marka qofkii in laga daweeyo marka waxaan isku soo duuba waxaan uga jeedaa all dimensionka ama qeybaha dhammaan ee sameeya kaaba maxaan ku raadaa inuu qofka uu helo 100% caafimaad dhameystiran waxay noqonaysaa in waxaas oo dhan ay wada shaqeeyaan si uu qofka u helo 100% waxa loo yaqaan wellness oo ah fayoobid heerkii ugu sareysay ama caafimaad heerkii ugu sareeyay oo ah the highest level of health possible in each of several health dimensions qeybaha aan soo sheegay qofka bay'adii uu ku noolaa badankiisii jirkiisii maskaxiyanba wixii oo dhan maxaan ku raad spiritual aqeediyan wixii dhan qofka markay u wada hagaagaan ayuu wuxuu noqonayaa qofka the highest of happiness iyo caafimaad inuu helo marka taa dabadeed islaamku se ra'yiga uu ka qabo ama manduur islaamka muxuu yahay caafimaadka sidee buu caafimaadka islaamku u arkay nabigeena calayhi salaatu wasalaam markuu ina soo gaarsiinayay fariintii uu Allah subhanahu wa ta'ala inooga soo qaaday ma waxay ahayd fariin cibaade iyo ku saabsan kaliyato mise waxa la socotay caafimaadkuna waa laga hadlay oo nabigu iyo wax kasta oo maxaa kale nabigeena calayhi salaam sida iftitaaxiga ka muuqatay shimbir doosha ma jirto talaabo kasta oo la qaadaa ma jirto ilaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu inoo sheegay in kasta oo islaamka ama kitaabka quraanka iyo xadiistu aysan ahayn maxaa la dhihi jiray protocol oo experimental ama maxaa kale si toos ah usan ahayn oo dictionary medicine usan ahayn laakiin at the same time waxa weeyaan waa meeshii guideline-ka laga qaadan lahaa oo ku tusi lahaa bidhaantii aad adigu wax ku furan lahayd maadaama Allah subhanahu wa ta'ala uu abuuray bini aadam awood u leh inuu daahfuro waxyaalo badan oo maxaa ku raad islaamku xambaarsan yahay islaamku markii uu ka hadlayay caafimaadka wuxuu sheegay inuu yahay nimco Allah subhanahu wa ta'ala uu umada u soo diray taasoo nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu ka hadlay wuxuu yiri qofna lama siin iimaanka ka gadaal wax ka wanaagsan caafimaad oo marka caafimaadku wuxuu noqonayaa darajada labaad ee qofka Allah subhanahu wa ta'ala uu ku munaysto marka hore al-yaqiin al-iimaan al-islaam qofka markuu iimaanka helo oo Allah subhanahu wa ta'ala ilaahiga abuurtay uu gartaa deen waxay noqonaysaa marka arintii loo baahnaa ee Allah subhanahu wa ta'ala uu ku caabudi lahaa waa inuu qofka helaa jir awooda maskax awooda inay wax qabataa oo adoonnimadii loogu talagalay inay qabato ay samaysaa marka hadii arintu sidaa tahay marka islaamku marka Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu gaarsiiyay mansilada aadka u heer sareysa ee ah waa the greatest blessing after belief waa nimco ama barako ama blessing or gift Allah subhanahu wa ta'ala uu bixiyo waa ta ku xigta iimaanka ka gadaal hadii aad fiirisid oo dadka iyaga mahmaahay iyo hal xiraalay iyo waxyaalo badan oo nileenahay oo ah in caafimaadka wax la dhaafsan karayo aysan jirin waxaan saalahan u soo qaatay nin Gandhi ay yiraahdaan oo mar uu ka hadlay uu yiri war hantida iyo qannimada la sheegayaba ma ahan dahab iyo qadaadiic iyo silver iyo dollar la dhaxlo ama la haysto ma ahane waxa weeyaa qofka inuu helo caafimaad qofka uu helaa wax u dhaafsan karaya ma jirto marka caafimaadka noocaas oo kala ah inuu kugu dhaafo dabeecado xun iyo waxyaalo yar iyo jahli oo dadka iyaga qaarkii ay sameeyaan oo in gadaal dambe ka ogaan doono runtii ma mudna caafimaadka in sidaa uu ku dambeeyaa waa darajada ugu labaad ee iimaanka ku xigta Allah subhanahu wa ta'ala markuu ku galaystay inaad islaam noqotaay nabigeena calayhi salaam wuxuu ku caribay oo uu sheegay dhowr jeer war qofkay u caafimaad qabta jirkiisa uu caafimaad qabo oo maxaan ku raahdaa familkiisa ama deegaanka uu ku nool yahay ay u aamin yihiin oo heli karaya wuxuu cuno maalintaasi iyo nolol maalmeedkiisina haysta wax adduunyo ka dhiman ma jiraan taas oo kala waxa dareemaysaa islaamka sida uga hadlayo caafimaadka ma ahan kaliya maxaan kala qofkii badbaado qaba jirkiisa uu badbaado qaba kaliya ma war qofkii jirkiisa uu caafimaad qabo oo maskaxdiisa uu caafimaad qabo arka doonaa waa qofkii familkiisa deegaankiisa noloshiisa heli karaya ee waxa dhan ay maxaan ku raada isku daboolan karaya Allah subhanahu wa ta'ala inta u sahlo waxa uu dhaafsan karaya maxaan ku raada waa heerkii darajada ugu sareysay buu ku jiraa
sida diinta inoo sheegaysa nabigeena calayhi salaatu wasalaam nin reer baadiye maalin u yimid baa la yiri markaasuu ninkii wuxuu weydiiyey warnay nabiga waxaad ii sheegtaa maxaan Allah subhanahu wa ta'ala weydiistaa markaan salaadaha maxaan shanta salaadood markaan tukado maxaan weydiistaa Allah subhanahu wa ta'ala markaasuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu sheegay wuxuu yiri Allah waxaad weydiisataa caafimaad ninkii way ku filaan weeday wuxuu yiri caafimaad weydiisasho kaliya kuma filaan maxaan ku raad wuxuu doonay wax kale oo gaar ahaan loogu sheego oo special ah uu soo noqday baa la yiri mar labaad haddana mar saddexaad uu soo noqday nabigu uu weydiiyay wuxuu yiri maxaan weydiistaa salaadaha markaan tukado waxaan doonayaa duco ii gaar ah oo weydiista maxaan weydiistaa Allah subhanahu wa ta'ala nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi fi dunya wal aakhirah وروحد ويدستا الله سبحانه وتعالى عافمات إنه الدنيا آخرة بقصية أو أدور سوناتد أو أدوانك سناتد أو أدين شاء محايا العافمات سكستون قنقر يهوت معناها الدنيا هنا دا عافمات قبتها ومسكح هذا يجير كاغا يوحى قرن السوق كادعسيهن ده واحد أود كريس الرب يقول أبورتنا سي ونكسن وعابدا آخرنا هدي أي واحد أدوك كوها جان هدا واحد نقنيسا وحكوسي صعدوا آخرنا أد محمد أساس الأول جايسا marka waxa kale oo jira nabiga waxa ka dareemaysa waxyaalaha uu sameeyay jiray diintu ina sheegtay oo ah in aanu afa ka qaadi jirin oo u badsan jiray markasta inuu rabbigiisa weydiisto inuu caafimaad siiyo nabigeena calayhi salaatu wasalaam isaga dayasho wanaagsan leh oo in lagu daydo ah oo Allah subhanahu wa ta'ala caafimaad buu xasiiya at the same time waxa dhacaysa inuu markastaaba Allah subhanahu wa ta'ala uu baryayo oo Allah subhanahu wa ta'ala caafimaad uu weydiisanayo oo waxa uu ku baryanay kamid ahaayeen in Allah subhanahu wa ta'ala iimaanka uu wanaajiyo uu dhowro iimaankiisa waxaan ka hadlaynaa spiritual health iimaanku wuxuu ka hadlayaa inuu Allah subhanahu wa ta'ala akhlaaqdiisa iyo maxaa kale badankiisa iyo waxa uu hagaajiyo inuu caafimaad siiyo iyo dambi dhaaf uu siiyo raalahaan siiyo wuxuu barayaa in Allah subhanahu wa ta'ala adduunkiisa iyo aakhiradiisa maxaa kale sida uu ku wanaajiyo wuxuu weydiisanayaa markastaaba in ehelkiisa maalkiisa inuu maxaa kale Allah subhanahu u dhowro waxa soo dhan waxay mudan yihiin wax lagu daydaa maxaa yeelay ficil ahaan buu u sameeyaa wuxuu sameeyay waxay tahay wax weeyaan qofka action ahaan buu la imaanaya subax kastaaba waa wax uu higsanayo waa plan uu leeyahay waa qorshe uu ku talagalayo inuu maxaan ku Allahna ka baryo ficilkeedina uu la yimaado marka caafimaadku waa wax noocaas oo kale oo Allah subhanahu wa ta'ala diinteenu aad bay uga hadashay oo maxaa la jiray wax qarsoon oo maxaan ku radaa iska qarsoon ma aha taasa keenaysa in subax kasto daa'ima iyo galab kasto maxaan kala gabal dhacba in nabigeena calayhi salaam sida uu markasta weydiisanayo leeyahay ilaahay oo caafimaad adduuniya aakhiro ilaahay oo caafimaad adduuniya aakhiro saas oo kale maalkayga ehelkayga ilaahay oo maxaan kala reerkayga iyo waxa soo dhan arkaysan maxaan kala Allahumma ihfidni min bayni yadayya wa min qalbi wa an yamini wa an shimali wa an min fawqi wa a'udhu bika bi'azamatika an aqtala min tahti waxa soo dhan waxay noo sheegayaan oo culimada ay noo sharaxday markastaaba oo ina ka maqan la in nabigeena calayhi salaatu wasalaam aanu har iyo galabba subax kasta waa bari kasta galab kasta aanu saafkiisa ka qaadin oo ficilkeedana uu la iimaanay oo marka heerkaas uu maxaa la jira caafimaadka uu islaamku ka taagan yahay mararka qaar kood markaas fiirsay waxa masaa'ishan iyo maxaa ka ahadiistan oo kale waxa leedahay xagee dadka ka qabteen dadkan isku dayeen sunnadii ay sida ugu dhaqmaan haddana maxay xagee aadeen wax kan waxa islaamku inoo sheego kale bini aadamku inuu imtixaan yahay oo dadku aysan appreciate gareyn waxaas dhan la sheegaya ee caafimaadka darajada ah ee haddana maxaa la dhihi jiray dadku inayba sidaa yihiin oo dad aan ka faa'iideysanayn oo haddana meel ka dhac u geysanaya caafimaadkii sababtuna waxay tahay sida xadiiska aad wada taqaanaan ee ah laba faa'iido oo waaweyn oo laba nimco Allah subhanahu wa ta'ala nasiiyay caafimaadka iyo firaaqadaba waa laba nimco oo nimcooyinka Allah subhanahu wa ta'ala kamida haddana dadku ay sabakaba faa'iideysan oo ay dadku ku kaashoomaan oo ayba maxaan ka meel uga dhacaan marka qaarkood waa talayaab kale marka wayna dhacday waqtigii hore haddana way dhacaysaa caafimaad buu Allah subhanahu wa ta'ala ku siinaya uguma faa'iideysanay sida Allah subhanahu wa ta'ala uu kugu talagalay marka laga hadlayo cibaado waa gooni at the same time xitaa noloshaada inaad noolaataa inaad jirtaa inaad nolol iyo ilmo jira aad adduunka la timaada waxyaalo badan waxay u baahanaysaa in caafimaadka qofka uu markaa uu waantoobo oo qofku dadka qaarkood ay maxaan ku radaa arinta u baraarugaan waa maqbuulun fiihima kathiir min dad badan ba kam maxal li jiray Bukhari baan warinayay marka arintan sheegaya ee aan rabo inaan cadeeyo waxay tahay caafimaadka
waa wax amaana ah ee